waxaan joognaa magaalada Malindi ee loo dalxiis tago oo ka mid ah ismaamulka Kilifi. magaalada markaan imaaday waxyaabaha isoo jiitay ama aan la yaabay waxa ka mid ah magaalo xeebeed ba haddana magaalo beereed ah, magaalo dhirteeda ay wanaagsan tahay, gebigeedba wada doog ah. markaan sii wareystana dadku waxay ii sheegeen dhanna intuu ka maro badda baa dhanka kaleetana webi uu ka maraa. way yar tahay magaalo labadaas kulansatay. waa afgooy haddaan kuu soo gaabay, waa afgooy iyo markoo la isku daray oo hal magaalo laga dhigo. dhanna bad baa ka marta, dhanna webiyaa ka mara. magaaladu idil waa wada cagaar. anaga inta ugu badan magaalooyinkeena ee xeebaha ah magaalo bacaad ah waay, waxba kama baxaan, waa wada ognahay. magaalooyinka kaleetana Shabeelle iyo Jubba uu maro oo kaliya dooga iyo waxyaabahan xilliga roobka iyo biyaha ay wadaan leh. saas darteeda magaaladan cadaanko idil way soo dalxiis tagaan. waxaa la yiraahdaa Talyaanida yar ama Roomada yar ayaa lagu magacaabaa. markaan sii dhaxmaray inta ugu badan waxaan arkaa 3 qof oo cadaan ah, 2 qof oo cadaan ah. waxaa lagu leeyahay qaarkood maqaaxi ay ku leeyihiin meel cadaan maqaaxi ay ka furteen. maxaad u malaynaysaa asalkeeda 800 sano ka hor waxaa la sheegaa in dadkii aas-aasay magaaladan biloway dhagax dhigay inay carab ahaayeen, cumaaniyiin ahaayeen. magaalada luqad ahaan way ka yara fog tahay Kiswahilida lagaga hadlo Kenyada inteeda kale. Kiswahiliga yaro fudud oo carabi u dhow ayay kaga hadlaan. hadduu Ilaahay yiraahdo magaaladan baan soo gaarnay nala dalxiis. Hapo ilipokuwa stage ya Mombasa kitambo. waxyaabahan u jeedaan waxa sameeyay tumaaladan wadanka Kenya u dhashay. dalxiisayaasha muhiimad buuran ay siiyaan waxyaabahan markay yimaadaan wadanka Kenya waxay wax ka iibsadaan. inta ugu badan waxay wax ka iibsadaan qolyahan tumaalada ah haddaan ku soo gabay ama Soomaaliya ku sheegay. qolyahan laakiin dhanka Kenya waxa laga yiraahdaa qolyaha dhaqanka u dul saaran yahay ama ilaaliyaasha dhaqanka loo yaqaan, dhaqanka ilaaliyaha. anaga laakiin waa caynaa qolyaha farshaxanada ah. farshaxana aan iraahna dadka wax bartaa dhaha farshaxanada, laakiin kuwa kale Soomaaliya yiraahdaan gabdho lama siisto, waa la tokora, waa la qayra. marka waxyaabaha ay soo saaraan oo waxyaabaha tourismka ama dalxiisayaasha markay yimaadaan ka reebaa lacag waa dhaqaalay ka reebo wadanka dhaqaalaysu. dawladdu way ka garaysaa, waa maalgelisaa, way dhiirisaa, shirarray u qabataa, horumarkooda ay ka fikirtaa. waxay u baahan yihiin oo idila loo fududeeyaa dadka sababtoo ah dhaqanka wadanka ku tiirsan. dhaqanka wadanka wadamada wuxuu kala duwan yahay, waa dhaqan inta kaleeto 9 bilood lagu kala dhashay waa la isku eegay. yar waxyaabaha iibiyaan qaaradda Afrika weeyaan tan markaad fiiriso calamadooda feeri ay gudbinayaan. wadan walbaba calankiisa ka iibinaya dhaqan weeyaan. wax walbana waxay ka sameeyeen geed weeyaan ama dhagaxa laga sameeyo la qoray, wuu ka originalsan yahay. cadaanka ayagoo waxyaabahan heli kara wadamadooda ka heli kara kan waxay u doorbidaan kuwa mashiina soo sameeyay wax saacadiiba 1000 xabo iyo 10000 xabo lagu sameeynayo. laakiin kan halkaan xabo waxa macquul ah maalmo inay ka qaadatay wax la xaqiijiyo quruxdiisa ay tahay in si fudud uu soo ku halaaway. waxaan u maleynayaa tan waa taqaanaan, waa qaado la isticmaali jiray ama awooyaasheen ay isticmaali jireen. waxaan u maleynayaa qaarkeen inay soo gaareen qaadooyinkan la isticmaalayo. farqiga u dhaxeeya midda hadda isticmaalno iyo midda taas kuleelku way soo gudbinaysaa. tan faa'iidadeedu waa qiyaas ka taana u maleynayaa kuleel way soo gudbinaysaa. quruxda gabdhahana kama marno, gacmaha loo gelina waxyaabo natural loo weeyaan. marka la socodaysa Nishuke nayo Abdi.
waxaan taagannahay masjidka ugu horreeyey ee magaaladan Malindi laga dhisay waxaana dhisay sida la sheegaa Cumaaniyiintii Cumaan boqor baa xukumi jiray boqorkaas wuxuu ku fikiray isla sidii ay gumaystaha u fikireen si la mid ah laakiin على طريقة الإسلام كفكر إن دين الإسلام كوفيديو يدك جارسيان في دين الإسلام كحكينتي إن عمان ما دام حب كتالو حبيه كتتنا إيريا دي أفريقيا أو سؤال هذا قاب جنعسي أهاني وحي أي مادين مرك عمانيين تا موزمبيق زنزبار مومباسا إلهي محلي هذا لامو يكسو جارين وحي أهد مرك جنعستو عمانيين oo u baahneed ciidankooda Cumaaniyiinta hadana inay ilaaliyaan ciidankii Cumaaniyiinta waxay la dirreen halkan ay kala dirreen gumaystihii ku soo duulay Portugiiska ahaa way la dirreen area-dan oo idil ilaa Soomaaliya Cumaaniyiintaas ayaa xukumi jiray marka Baraawe ilaa Muqdisho saasay u degnaayeen boqorkii area-dan haystay Cumaan haystay wuxuu area-dan Afrikada u xil saaray wiilkiisa oo la oran jiray Sayid Barqash masaajidkan dhismihiisa waxaa la sheegaa 300 sano ka hor inuu ahaa inta ugu badan masaajidada magaaladan ku yaala ayagana dhisay masaajidada magaalada ku yaala inta ugu badan waxa dhisay Cumaaniyiintaas waxay ku yaalaan marka u fiirisid magaalada dhaxmartid masaajid walba meesha ugu istiraatiijisan magaalada ay ku dhex yaalaan bartamaha magaalada ama meel roundabout ah kala wareega ay ku yaalaan halka annaga aan ku fikirayna mar walba meesha kala wareega ama bartamaha magaalada dukaan laba irdood saad ugu fir lahayn waxyaabaan aan ku fikireen islaamka inuu ganacsi iyo ganacsato ay fidiyeen waxa ku cadeynay uusan seef ku fidin waxa ku cadeynay markaad wareegtid waad meelahan amal ah timaadid islaamka ganacsi ayuu ku fiday ganacsatadaas waxay fidinayeen qab dhaqankii islaamka oo dadka ula tacaamul laga rabay ay fidin jireen ma ahayn xukuumusan fidin halkan waxa ka muuqda faras laga sameeyay caw wuxuuna yaalaa madxafka weyn ee Malindi waxaan ku jirnaa madxafka magaalada Malindi waxaan u jeedaa boqolaal sano ka hor wixii la isticmaali jiray waaye dhaqanka waa la ilaaliyaa waxaan lagu ilaaliyaa wuxuu kala saaraa dowlad kaleeto dowladaan dhaqan lahayn dhaqan soo jireen aan la ilaalinayn macnaheedu dowlad kale isku bedelaysaa inaan kaga duunaado Zanzibar iyo wadamada kale ma aha timaha oo kaliya isanka in la fiiriya dhaqamada kala duwan baana kala duwanaa anaga naftirkeena wax dhaqankooda ilaaliya fiir waxaan aniga ceeb aan u aragnaa Soomaali haddaan nahay waxaan ilaalin ceeb aan u aragnaa laakiin ayaga laga saxay adduun walba inta Soomaali marka la yiraahdo inta kale dhaqamadooda ilaashadaan meel ay dhigaan timihii aan hagaajin jirnay waagii hore in la dhigo waa sawiradaas dadku soo ahaan jireen maraaxishii la soo maray in qofka dambe uu ogaado waxyaabaha la soo maray kuwan hadda application-ada sameeyaan software oo beddelkooda galay durbaanada laga gaaco software oo codka uu kaliya laga rabaa qofka inuu maxaa la yiraahdaa uu ku hayso ama wax ku gudbiyo laakiin kuwan shaqadii qaban jireen oo idil waa la soo gaaray waagii hore shaqada ay qaban jireen waxaa macquul ah qof in loo baahdo waxaan garaacay hadda laakiin application oo markii codka la duubo kadib la hagaajinayo in lagu daro marka laakiin wax la soo maray application-kaas ka hor process-ka la soo maray qayb ka mid kana waxa marka dhaqanka waa kana idin muuqda kan waa jikada lagu korsiin ama digsiga ma eedin kan dhammaadkiis qarniyadii dambe waxaan u malaynaa aniga naftirkeyga inaan soo gaaray dheri baa la yiraahdaa meelaha qaarna in laga isticmaalo waa digsigii wax lagu karsan jiray maxay ka macaan wixii lagu karin jiray nolosha maalinba meel ay joogtay madxafkan waxaan ku aragnay bahalkan waxaa loo isticmaali jiray galleyda ayaa lagu shiidi jiray taxiin galleyda lagu shiidi jiray waxaan u malaynaa inaan soo gaarano yar waa kan hadda makiinaday sheegayska noo sameeyeen shirkadii idin waa la soo taagay laakiin process-yada la maray ayay ka mid ahay labadan dhagax dhexdooda geed baa halkan la geliyaa waa la wareejiyaa halkaana badalkooda ugu sugan labadan dhagax culayska ka imaanaya ama isxogista ay labada dhagax isxogayaan bugga leeyihiin ay ku shiidi jirta ama haruubka ku shiidi jirta alla maxaa wax badan oo taariikh ah mataaxiftaan ay yaallaan
kabo waaye la isticmaali jiray 300 sano ka hor alwaaxu ka samaysay waxaan marba maalinba meel ay joogtay maalinba meel alwaaxay ka samaysanaayeen bal fiir kaba alwaax bal ii sharax qaabka loo wadan lahaa maantadan aan noolnahay maabkan iga dambeeya marka madxafka dhex wareegay waxaan u maleeyay maab juqraafi ahaan oo mar uu la sameeyay inuu yahay muhiimad buuran maana siin maana ku baraarugin maabka iskuulka yaallo ama meelaha kale yaallo inuu la mid yahay kuma u maleeyay laakiin markaan si fiican u fiiriyay aan u kuur galay waxa ii soo baxday laga soo bilaabo Mombasa ilaa Lamu laga gaaro juqraafi ahaan sida qabiilada ay kala digaan ayuu u qoray qabiil magaalo walba oo qabiilkeeda ayuu ku qoray halka magaalo la qoray lahaa qaab juqraafi ahaan wuxuu qoray meesha laga rabay qabiil fulaan magaalooyinka ana iskala isku haysanaa in koox ay soo baxdo guri ay kareystaan ama meel la soo digo 5 sano ka bacdina markii tiradooda ay arkaan magaaladan anaga u badan anaga iska waxa ka qurux badan in madxafku uu yaalo nidaamkana ka qurux badan in madxafku uu yaalo maxaa la yiraahdaa kun sano ka hor halkaa fiir madxafku wuxuu yaalaa ama qaab ismeedka qabiilada waxaa magaalooyinka u kala saleeyay ay kala degan yihiin waxaa la qoray less than 100,000 years ago